tabinteennan waxaynu ku eegaynaa mid ka mida warbixinaha ku saabsan nolosha shakhsi iyo shaqeed ee shakhsiga loogu hadalhaynta badan yahay warbaahinta iyo fagaarayaasha siyaasadda ee ay Soomaalidu ku kulanto. waa shakhsiga ugu caansan bulshada dhexdeeda, kaasoo aan ahayn madaxweyne xil haya ama mufti caalim ah oo diinta meerinaya. waa nin aan dad badani la kulmin, shakhsiyad ahaan qarsoon, isna qariya, balse dadka aan ka qarsoonayn. waxa uu yahay qof kartidiisu gaarsiisay mustawaha awood shakhsiyadeed ee qof yeesho saamaynteeduna gaadhay gees ilaa ka gees dalka Soomaaliya oo idil, kana tallowday xuduudaha. qofka aan ka hadlayno waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, la taliyaha amniga qaranka iyo agaasimihii hore ee NISA, lana rumaysan yahay inuu udub dhexaad u yahay khilaafka Farmaajo iyo Rooble ee hadda taagan. waa kuma qof ahaan Fahad Yaasiin? ma jirto xog daabacan oo laga hayo, meelna kuma qorno xogtiisa shakhsiyadeed ee gaarkayhi. halka uu ku dhashay ma jirto cid si qeexan u haysa. daahaan waxaa lagu tirinayaa kacaanka 40 jirrada ama 40meeyada. waxbarasho ahaan waxa uu bartay aqoonta sharciga ee u janjeedha xagga diinta. waa wadaad afgaaban, waa suxufi baaliq ku ah garnaqsiga iyo abuuridda ubuucda. waa siyaasi aan la saadaalin socodkiisa, xisaabta siyaasaddu aysan si fudud ku dhaafin. waa sirdoon aan la dhakrin 4 sano ee la soo dhaafay. koritaan ahaan waxa uu ku garaadsaday gobolka kulmiya xuduudaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. waa Gado, beled Xaawo ayuu ku noolaa yaraantiisa inta uusan xirnimo iyo xarumo waxbarasho kaga biirin Yaman, isagoo muddo gaaban kadibna ku soo noqday beled Xaawo. waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka la falgalay aragtida al-Ittixaad al-Islaam, laakiin qori ma qaadan mana noqon dagaalame sida saaxiibadiisa xilligaasi ay tabiyaan. waxa uu qoys ahaan ka soo tafeermaa reer lagu ixtiraamo ka shaqaynta diinta iyo faafinteeda, waana halka uu ka haysto shaqada ku dhisan adeegista diinta iyo ku dhaqankeeda. safar waxbarasho oo aan cayinayn ayuu ugu baxay Bakistaan iyo Suudaan, walow waqtiyadu ay aad u koobnaayeen. mihnadiisa saxaafadeed waxa uu ahaa suxufi iyo turjumaan saxaafadeed. waxa uu hormuud u ahaa wariyaasha aysan xilli jirin xarun ay ka howlgalaan, ee haddana mihnada wartabinta halka u sarraysa ka gaaray ilaa uu ka noqday xiddi ku tilmaaman warbaahinta Soomaalida. 2004 mareegtii akhriska badnayd ee Soomaaltelka ayuu ka ahaa qore iyo faalleeyo siyaasadeed. maqaalkii koowaad waxa uu baahiyey 29 Noofembar 2004. ciwaanku waxa uu ahaa qisadii qarniga. waxa ay ka hadlaysay sheekada Samsam Axmed Ducaale oo ahayd gabar lagu afduubay Hargeysa. maqaalkaas waxa ka dhashay silsilado gabayo ah oo gaaraya 30 gabay, falcelin xooggan oo gaaraysa 1200 oo fariimood, iyo qisadii qarniga oo noqotay mid saameyn weyn ku reebtay ilaa maantadan xeerarkana gashay. muddo 7 sano ayuu ahaa mas-uul, wariye iyo ardayna la ahaa warbaahinta Al-Jazeera. muuqaaladii ugu daawashada badnaa ayuu ka baahiyey caasimadda Muqdisho kolkii ay ka socotay dirirta lagala hortegayay ciidankii Itoobiyaanka ee Soomaaliya soo galay 2006 dhamaadkeedii. GMIS هذه مفردات باللغة الصومالية وتعني مجلس المحاكم الإسلامية في الصومال، وهذه الأرقام قد تكون تعني التسلسل الرقمي لهذه السيارة. si aan leexleexad lahayn ayuu uga soo horjeestay joogitaankii Itoobiyaanka ilaa uu saldhig ka dhigtay Casmara oo Eritrea ah. sanadkii 2013 waxa uu noqday cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka iyo tababarada ee Al-Jazeera ee ay leedahay dowladda Qatar. ka hor inta uusan siyaasadda ku soo biirin, waxa uu kaydiyey cilmi baaris ku aadan dhaqanka iyo fikirka kooxaha Islaamiga ee Soomaaliya, waana halka la rumaysan yahay inuu aragtiyo badan ka haysto galaangalkiisa siyaasadda. Fahad Yaasiin waa shakhsiga kaliya ee Soomaalida maanta nool ugu awoodda badan dhanka wada hadalka iyo sheekooyinka siyaasiga ah. ruuxaan lahayn dabci laga dido oo dugsi u ah kabiirada iyo kalkaaliyaashiisa siyaasadda ayaa lagu tilmaamaa. waxa uu horseed ka noqday 2 guul siyaasadeed oo dalka ka dhacday. waa awoodda qarsoon ee keentay kuraasta madaxtinimada
ee xasan sheekh iyo maxamed cabdilaahi farmaajo waana halka laga dheehan karo nooca galaangalkiisa siyaasadeed labada jeerba waxa ay guushiisu u samaysay mucaaradid xooggan oo ah ragga ay isku hayaan hayaanka iyo hardanka siyaasadda hankiisa siyaasadeed fahad dadka ay isla soo shaqeeyeen waxay u yaqaanaan nin leh han u gaar ah hankiisa ugu weyn ma aha kursiga siyaasadeed ee wakhtigan inuu ka qabto Soomaaliya balse waxa uu hamuun qabaa inuu magac kaga tago qulubta Soomaalida waana inuu noqdo haliyay ay kaga daydaan aragtida dawladiska waxa uu leeyahay damaca in Soomaaliya mar qowmiyad ahaan ay isku xukunto dad ahaan waana aragtida weyn ee hami'aan uu rabo inuu rumeeyo shaqadiisii dawladeed siyaasadda casriga ee Soomaalida fahad waxa uu ku leeyahay taariikh u gaar ah waa qofka qura ee xil wasiir iska diiday isagoo aan u casilin garabsi siyaasadeed oo uu kala jirsanayo madaxweyne ama ra'iisul wasaare xaalad caafimaad ama amir reereedba waxa uu diiday inuu qabto xilka wasiirka dekedaha xilligii dawladii xasan sheekh waana xilkii ugu horeeyay ee loo soo bandhigay inuu qabto balse gadaasheed waxa uu qabtay laba xil oo ka hooseeya kan wasiirnimo ee uu kal hore diiday balse ka saameyn badan marka la eego sida magaciisu ugu baahay saaxadda siyaasadda waxa uu soo noqday agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenniisa ah iyo hadda oo uu ku magacaaban yahay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo waayihiisa dambe ee wakhtigan fahad yaasiin shaqada uu ka qabtay labada xafiis ee uu soo maamulay ayaa ah makhraatiga ugu weyn ee kartidiisa ku furaysa waana mid ay ka marakacayaan taageerayaashiisa iyo xataa qolyaha mucaarada cid kastana waxayba isku raacsan tahay diiwaankiisa waxqabad sumcaddiisa shakhsiyeed magaciisa baahay inay ka dhigayaan wiilkan isqariya mid dhextaal u noqon doona siyaasadda Soomaalida fahad mucaaradkiisu maxay sheegeen nin ogol asaga inuu rabo inuu asaga wuxuu sameeyo qayb ka yahay ay joogaan jecel waaye dadaalkaas runtii oo ku amaanan yahay oo waana ku fiican yahay waqti badan iyo time badan inuu geliyo oo nin commitmentiga ana waa jeclahay dadka commitmentiga leh oo inay rabaan waxa ay sameeyaan ay ku gaaraan aragtida leh mowqifka leh oo aan siyaasadda ahayn maanta hadaan helana waa qaadana bari waa hela masaalix yarka siyaasadda ugu jirin dhinacaas waa iga cajab geliya fahad ninka la yiraahdo waa macalinka kacanka ama ayatullahayga kacankaas dhashay waa nin aaminsan in dawladnimada go'aankeeda asaga sidoo doono uu ka yeelo fahad intan ka aqaano waa nin go'aan leh fahad intan ka aqaano waa nin dantiisa gaarta ah sida looga shaqeeyo yaqaana laba kalmadood baan kuu sheegay oo af Ingiriis oo macnaynaya waxaan u dan leeyahay inaan ka idhaaho fahad kelmad waxa la yiraahdaa smart waa qof garaad weyn leh midna waxa la yiraahdaa cunning waxa weeye nin qof xeelad badan dacwada xeelad badan baa la dhahaa fahad markaa waa nin cunning waay xeelad badan waay markaa wuxuu doonaya wuu yaqaanaa meesha uu socdo wuu yaqaanaa dadka waxa uu fulin kara wuu yaqaanaa waxay u yaqaanaa nin hal adag doonistiisa aan qarsan sidoo kale waa nin aan ka shaqaynin siyaasadda dimindaabyada ah ama ballanka baxa waana sababta uu wali u sii ahaan doono dheemanka la wada baadi goobi doono iyo jawharadda qaaliga ah ee ku dhex jirta siyaasadda Soomaalida dad kale oo waqti xaadirkan dhalisan waxa ay ugu yeerayaan in siyaasadiisu ay saqiirtay oo ay dhimatay maadaama uu dhexda u galay arrin weyn oo siyaasadeed laakiin dad kale oo iyana taa ka soo horjeeda ayaa leh siyaasadaynta dhammaan dhacdooyinka ku gadaamanna waa kuwa aan cafis waqtigu u siin doonin